بسم الله الرحمن الرحيم. maxaa aniga iga dhigay dameer adigana kaa dhigay faras farasii dameer baa maalin wada hadlay iyagoo isku haysta waxa midna sharaf iyo qiimo u yeelay ee midka kalena dulleeyay ee hoos u dhigay dameerkii baa ku yiri faraskii sidaan dadka ugu shaqeeyo adiga uguma shaqaysid waxaan u qabtana uma qabatid adigayna dadku ku jecel yihiin adigayna ku ammaanaan adigayna ku xiiseeyaan waa kaa shaqo badanahay oo waa kaa xoog badanahay oo kaa culays badanahay haddana waad iga sharaf badan tahay maxaad ku heshay sharafta iyo qiimaha ay dadku ku hayaan aniga igu waacan dulinimada maxaa iga dhigay dameer adigana kaa dhigay faras faraskii baa ugu jawaabay oo ku yiri xoog badan iyo alaab culus oo la qaado ama shaqo badan oo la qabto sharaf iyo wanaag laguma helo waayo sharaftaada iyo qiimahaaga waxa ay ku xiran yihiin waxa aad xambaarsan tahay waxaad qiimo beeshay marka aad dhabarkaaga saartay cunto biyo iyo raashin aniguna waxaan qiimo yeeshay markaan dhabarkayga saaray qof nool oo fardafuul ah ama dagaalyahan ah markaas ayaan ka qayb galay dagaalka sidaasaan geesi ku noqday adiguna doqon ku noqotay sidaas ayaa lii ammaanaa adigana laguu caayaa sidaas baa dameer ku noqotay aniguna faras ku noqday haddaba daawade murtida sheekada haddii faras iyo dameer ay ku kala sharaf bateen waxa ay dhabarka ku xambaarsan yihiin dadkuna waxay ku kala sharaf bateen aqoonta iyo fikradaha uu nin walba xambaarsan yahay dadka mid baa xambaarsan fikradda ah cunto iyo biyo sida dameerka oo kale halka midna uu xambaarsan yahay inuu ka fikiro dadka mar walba hagaaji fikradda aad xambaarsan tahay waayo waxa aad xambaarsan tahay baa lagugu qiimeyn ula dhaqan qof kaste aad la kulanto sida aad rabto in lagula dhaqmo jooji eedeynta dadka kale mas'uul ka noqo noloshaada u muuji ixtiraam macallimiinta sirtaada heeso haddaad saaxiibo cusub yeelato hayloobin kuwii hore maalinta dhalashadaada masaakiinta quudi u naxariisa naftaada iyo dadka kaleba noqo qofka ugu horeeya ee dadka salaama xusuusnow dhalashada asxaabtaada waxaad badisaa kelmadda waad mahadsan tahay